الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. حقني وحنون Virtual Academy. حنون Virtual Academy أو كسو قد بنو maadooyin laga barto min dugsiga sare ilaa heer jaamacadeed oo ku salaysan qaacidada maadooyinka laga shaqeeyo calculationka ayaanu xaggan ka bixinaa iyakii oo lagaga isticmaalayo farsamada casriga iyo sidii ugu fududeydna looga jawaabayo. sidaad horey u ogsoonaydin waxaanu xaggan aan kasoo gudbinaynay maadada statistics oo inoo maraysay qaybtii saddexaad ayaanu maanta xaggan kasoo gudbinaynaa qaybteedii afraad. saad aad hore usoo ogsoonid waxaanu xaggan aan kasoo gudbinay saddex qaybood oo kala ah. qaybtii koowaad oo introduction ka ahayd, qaybtii labaad oo ah mean, iyo qaybtii saddexaad oo ahayd median, iyo qaybtii koowaad ee ugu dambeysay measure of central tendency-gan oo ah mode ayaan maanta xaggan aanu kasoo jeedinaynaa. fadlan intaan aan xaggan aan u guuda gelin bal aan dib u yara fiirino waxaan hore aan usoo baranay. waxaan hore usoo baranay ahayd frequency distribution kase loo sameeyo iyagoo ah laba qaybood oo ah ungrouped iyo grouped data. frequency distribution si aan sameeyay anagoo isticmaalayna ungrouped data iyo grouped data. takale labaad waxaan soo fiirinay ahayd number of classes datagana la siiyey intee category ama class ama group aan kala qaybinaynaa anagoo isticmaalaynaa qaacidadan k waxay lamid tahay 1 plus 3.322 logarithm of n to the base 10. then waxaa haddana aan soo baranay ahayd size of class interval saan soo saari lahayn. size of class interval waxaan kusoo saaraynaa anagoo isticmaalaynaa which is range over number of class. number of class waa kan aan xaggan aan hore u sheegnay. rangegan maxaan ku helinaa? rangiga waxa weeyaan our smallest minus largest data setkeena marka labada la kala jaro inta la helayo waa range. then at the same time haddana waxaan fiirinay class boundary. class boundary-ga waa maxay? it is an upper class boundary oo ah upper class limit-ka oo lagu daray 1/2 of error term iyo lower class boundary oo lagu daray lower class limit minus 1/2 d. then mid value or class mark kan waa kan noo muhiimka ah mar walba inaan kaga shaqeyno. kan see loo helaa mid value ama class marka for group data. mar walba lower class iyo upper class la isku daro ayaa laba loo qaybiyaa, which is lower class limit ama lower class boundary. ta labadoo la isku daro ayaa laba loo qaybiyaa. taa xaggaasaan kaga soo gudbinay. at the same time haddana qaybtii labaad qaybtii saddexaad waxaan kusoo fiirinay ahayd qaybtii labaad waxaan kusoo fiirinay ahayd mean. what mean by mean? mean kala usii kala kaca arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean iyo weighted average mean. kaas oo ah marka koowaad qaacidadana laga isticmaalaya summation of xi over 1/n marka uu yahay ungrouped data. markuu isagoo ungrouped data frequency uu leeyahayna waxaa laga shaqeynayaa frequency times xi over 1/n. markuu uu yahay group frequency distribution muxuu leeyahay? the only difference meeshan xi baan ka dhigaynaa mi, which is class mark ama class interval mid value. class mid value yaan xagga yaan leenahay. class mid value macnaha upper class minus plus lower class oo laba loo qaybiyey weyaan kaas. intaas kala duwan. then maxaan kaloo soo fiirinay? waxaan soo fiirinay geometric mean. geometric mean waxaan ku helaynaa waa anti logarithm of summation of log of xi. xi macnaha x1 x2 x3 x oo loo qaybiyey number tiradii ahaayeen. marka uu yahay group laakiin wuxuu leeyahay frequency baa lagu sii dhufanayaa xi-da. intaan summation la sameynin ka hor ayaa mid walba frequency-geeda lagu dhufanaya markaas loo qaybinaya n. at the same time waxaan haddana soo firinaya harmonic mean. harmonic mean oo the reciprocal of arithmetic mean. that means waxa weeyaan kan n baa loo qaybinaya laakiin n-da iyo kaloo sii qaybinaya. n-da loo qaybinaya summation of xi oo isagana lasii sameeyey 1/xi. groupkiisuna muxuu leeyahay kan oo frequency baa mid walba loogu sii dhufanaya. nothing. then
weighted average mean kun muxuu la mid yahay arithmetic mean kaasuu la mid yahay on exception weighted kan muxuu leeyahay in baa mudnaan la siinayaa qaybta mudnaanta la siiyay baa soo qaadayna ka dhigan tahay summation of xi intii mudnaanta la siiyey iyo inta jeera mudnaanta la siiyey ayaa loo qaybinayaa mudnaanta summation of total mudnaantii la siiyey tan waa maxay bay ka dhigan tahay waa mean markaan kasoo shaqeeynay at the same time dana waxaan soo fiirinay ba ahayd qaybtii saddexaad aan kusoo fiirinay waa a mediankeena oo ah isna ungrouped iyo group data markuu uu ungroup data uu yahay step yaa la isticmaalayaa then step 1 mar walba maxaa nari waa increasing order mode ayaan diyaarinaa then waxaan fiirinaynaa middle numberka ayaan fiirinaynaa middleka numberkaas oo laba shuruud uu leeyahay haddii uu number of observation datageen uu yahay odd haddii uu yahay waxaan isticmaalaynaa n+1/2 hadduu even uu yahayna waxaan isticmaalaynaa waa n/2 iyo n/2 macnaha n/2s plus n/2 labada inta laisku daro yaa laba loo qaybinayaa waa marka uu yahay ungroup data marka uu group data uu yahay laakiin toos maxaa la isticmaalayaa qaacido baa la isticmaalayaa qaacidadaas oo ah BLN/2 CFC times I BL waa waxa kan BL waxa weeyaan waa lower limit ka weeyankaasi n waa number of observations weeyaan kan CSFI waa cumulative frequency preceding the class ka sii horeeyo weeyaan FC gana waxa weeyaan cumulative frequency ku aadan kan laga soo qaaday BL ama boundary limit lower limit laga soo qaaday way ka tahay now bal aanu fiirino maanta casharkeennii maanta oo ah measure of central tendency qaybtiisa maxayaan nidhi mode laakiin taanaan gelin bal aan soo dulmarno mode mean iyo saddexdan waxay kala yihiin meanku waxa weeyaan is an average of a set of a number which is calculated by adding all the numberada isku wada daraysaa tiradaad u qaybinaysaa then medianken waa ka dhexdhexaadka is the middle value in the list of the number then modekenina waa kan modekenina is the value that appear most frequently numberka ugu muuqaalka badan ama ugu soo celceliska badan ya inta goor la sheegay kaas ayuu yahay based on marka xaggan maxaan leenahay one mode buu noqon karaa mid more than one mode unimodal bimodal no modal iyo multiple modal buu noqon karaa ka dhigan tahay then modeka markaa bal aanu qeexno aanu ka shaqeyno wuxuu yahay modekeenu marka koobaad waxaan fiirin doonaa for group data as well as haddana waxaan fiirin doonaa marka koobaad mode for ungroup data marka labaad mode for group data iyo marka saddexaad determination of the modal classka seebaa loo qaybteebaa lagu soo raadiyaa ayaan taadan fiirin doonaa at the same time qaybta afraad waxaan ka fiirin doonaa graphical meterka see loogaga shaqeyn lahaa now bal aan fiirino mode for ungroup data markaaseen kaga shaqeynayna ungroup data for model waxa lagaga shaqeeya mode first of all mode is defined as the value which appear frequently in the data set numberka ugu celceliska badan ayaa la dhahaa mode marka databa xaggana la siiyey datagana xaggan marka la siiyey baa la yidhi raadiya modeka ka dhex raadiya baa la yidhi modeka ka dhex raadiya baa la yidhi dataga then datagan markaa numberka ugu celceliska badan iyo waa inaan ka dhex fiirinaa as a simple marka koowaad maxaan sameynaa increasing order baan u qoraynaa increasing order markaan u qorno numberkan muxuu noqonayaa increasing number baan ayaan ugu qoraynaa markaan increasing number aan u qorno numberka ugu tirada badan macnaha imika 90 mise goor baa la sheegay 1 2 3 goor baa la sheegay laakiin kuwa kale lama sheegin marka modekeenu muxuu noqonayaa waa saas waa 90 buu noqonayaa as a doctor who checked nine patients at the same time haddana waxaana la siiyey data kalena la siiyey markaasaan idhi modeka raadiya
moodka xaggan markaan aan raadinay maxaanu helnay waxda la soo celceliyey mid walba marba laga soo dhex sheegay mid walba markaa xaggan kan muxuu yahay norm mode kan waa unimodal baa la dhahaa kan waa norm mode then data kaloo haddana la siiyey dataga marka la siiyey xaggan maxaa jira 10 iyo 12 laba goor baa la sheegay then kan waa bimodal buu noqonayaa ka dhigan tahay 10 iyo 12 maadaama laba goor la sheegay it's a bimodal then isagii oo frequency lagu soo sheegay xaggana markana waa then moodka raadi haddii la yidhaahdo ka ugu celceliska tirada badan waa kii day 7 iyo number of patents 6 7 8 9 10 marka keebaad intee ka ugu badan kala sheegay waa kii waa number 7 maalinkii 8aad iyo 7 patient baa soo xaadiray right patient ugu tirada badnaa waa goorma waa maalinka marka 7kaas muxuu noqonayaa it is our mode bay noqonaysaa ka dhigan tahay which is 8 it's now mode for group data muhiimkeenu waa xaggan inta kale waa iska easy grouped markuu yahay see baa loo raadinayaa moodkeena marka for grouped markuu yahay waxaa loo raadin karaa mode or a mode value of distributions are the value of the variate for which the frequency is maximum. It is the value around which the item observation tend to be most heavily concentrated. meesha uu ku badan yahay ama si fiican loo soo qeexay ayay noqonaysaa moodkeenu ka dhigan tahay so iminka waa kan qaacidadana markaan isticmaalino for group data qaacidadani waa maxay bl tan waa lower limitkeennii bl is our lower limitkeennii weeyaan f1 waxay lamid tahay frequency of a model class frequencygii modelka laga dhex helay weeyaan frequency of the class kan waa frequencygii modelka kii laga dhex helay kii ka horeeyey f2na frequencyga model laga helay waa kii ku xigay iguna waa width of the class limit ama class intervalkeennii weeyaan exercise baan ka shaqeyno exercise markaan ka shaqeyno exerciseka waa kan xaggana laga siiyey macnaha marka kan la siiyey maxaan sameynaynaa marka koowaad waxaan sameynaynaa waa frequency distribution kan qoraynaa frequency distributionkiisa sameynaa frequency distributionkiisa markaan aan sameyno number of sanaan soo sheegnay eg macnaha 18 iyo 12 iyo 16 meesha ugu concentrated bayaad qaadanaysaa intan ayaa ugu soo badan macnaha suma keeba ugu badan kantu waa kaasa ugu horeeya f1 kan waa f0 kanna waa f2 markaa qaacidadeeni baan toos u gelinaynaa qaacidadeeni markaan toos u gelino f1 keenu waa 18 f0 gan waa 12 f1 ku waa 16 f0 waa 12 f2 waa 18 lagu dhuftay imsa lagu dhuftay 300 marka 400 laga jiro waa imsa 100 waxa lagu dhufanaya bl geenu waa kee bl geenu waa ka ku toosan kan waa 300 that means bl which is lower boundary limit keenu waa 300 frequency f meesha laga helay waxa laga soo dhex raadiyaa labada marka laga jaro 100 kuna muxuu noqonayaa 100 kuna waa i geeni buu noqonayaa ka dhigan tahay okay 300 lagu dhuftay 18 laga jaray 12 lagu dhuftay 100 300 18 marka 12 laga jaro waa 6 laba marka lagu dhufto 18 waa 36 12 marka lagu daro 16 waa 36 because negative madale waa la isku darayaa waa 28 then waxayna markaa xagga waxay noo imanaysaa bal aan fiirino see ku timiday waxaan niri 6 loo qaybiyey 36 laga jaray 28 waxaan isnaa xagaas waa 0.75 intaas waa 0.75 lagu dhiftay imsa 100 maxay noqotay waa 75 xagan intaas maxay noo timid 75 xagan kale maxaan isnaa 300 lagu daray 300 waxay noqonaysaa 375 waa sax ba ka dhigan tahay
then the modal income of the family is 375 in automatic bay ka dhigan tahay marka laga shaqeynayo waa maxay for group data. Okay, sidee loo raadiyaa modal classka toos hadday matalan imika goor dhaweyd way iskugu aadanayd marka lambarkooda weynaa baan sii qaadanay bahay laakiin si yaroo ka fudud oo lagu raadiyo baa jirta modal classka sidee loo raadiyaa waxaa loo raadiyaa first of all if marka maadaama impossible marmar waxaa dhacda if the maximum frequency is repeated 18 baan toos u qaadanay ma ogtahay 18 haddii dhowr jeer lasoo sheego seen u qaadan karna lama garan karo. If the maximum frequency occur in the beginning or at the end of the distribution datageeni frequency maximum hadduu ugu horeeyo ama ugu baneeyo xaggaasna khalad baa ka imanaya. Ama if there are irregularity in distribution keena dataga laftirkiisa hadduu irregular uu yahay marka khalad baa ka yimid inuu khaladaadka marka in loo saxo maxaan u baahanahay meesha ugu saxsan waa inaan classka aan ka soo qaadanaa marka sideen u soo qaadanaa step yan isticmaalayna then stepkaas waa maxay first of all in column we write down the given frequency yaan marka koobaad qoraynaa column 2 maxaan ku qoraynaa obtain the combination of frequency to egg marka koobaad frequency gaan qoraynaa column-ka labaad maxaan qoraynaa frequency waan iyaan laba aan isugu darayna xagga marka saddexaad maxaan sameeynaa column-kii labaad ee laba isku darna haddana isagii laba ayaan haddana mar labaad isugu daraynaa marka xigta maxaan sameeynaa by combined frequency 3 by 3 markan aan laba isugu darayno tan labaad saddexaad ta koobaad baan ka boodaynaa leave the first frequency ta koobaad baan ka boodaynaa markaan ta koobaad ka boodayno yaan laba isugu daraynaa marka afraad maxaan sameeynaa saddex baan isugu daraynaa marka afraad maxaan sameeynaa koobaad iyo ta koobaad baan yaan ka boodaynaa markaasaan maxaan sameeynaa saddex baan isugu daraynaa marka xigta ta koobaad iyo ta labaad baan ka boodaynaa imsaan isugu daraynaa saddex baan isugu daraynaa. bal aanu fiirino anagoo isticmaalaynaa example-kan ama exercise-kan waxaan la siiyey size-gaasaan la siiyey frequency-ga annaga maxaan u baahannahay frequency-gaasaan u baahannahay waxaan soo sameynaynaa frequency size-ga xaggaasaan qornay frequency-gana xaggan aan qornay marka tan weeyahay muhiimaddu xaggan maxaa la yidhi marka koowaad labaan isugu daraynaa 9 marka laba la isugu daro waa 21 15 marka 16 lagu daro mise waa 31 17 marka 15 lagu daro waa 32 10 marka 3 lagu daro waa 23 marka xigta muxuu yidhi ta koowaad ka bood laba isugu dar right ta koowaad baan ka boodnay 12 marka 15 ku darnay waa 27 markan 16 marka 7 ku darnay waa 33 15 markan 15 ku darnay waa 25 right ta waa kaligeed bitaagan tahay ma baahnin marka saddexaadna muxuu yiri saddex isugu dar saddexdaas aan isugu daraynaa 9 12 iyo 15 marka la isku daro waa 36 16 marka saddexda la isku daro waa 40 iyo 8 labadan kale uma baahin saddex ma aha marka xigta muxuu yiri ta koobaad ka bood saddex isugu dar taa koobaad laga boodaya saddexdaas la isku daraya 12 15 iyo 3 marka la isku daro waa 45 17 15 marka la isku daro waa 42 taas way kaligeed baa hadhay waa laga boodaya marka xigta ta koobaad iyo ta labaad ka bood buu yiri saddex isku dar marka 15 16 17 baa la isku daraya waa 48 15 10 iyo 3 marka la isku daro waa 33 right simple so ma fahmin then markaasuu yiri mark the highest frequency in each column for each column one maxaan mark sameeynaa frequency-gooda ugu weyn bayaan mark sameeynaa after finding the modal class use the formula to calculate marka ka bacdi formulaga isticmaal oo calculate samee buu dhahay muxuu yiri waka table-kii baan saan u samaysanay column-keenii xaggan samaysanay class interval-keenii xaggan samaysanay ka dhigan tahay column-ka koobaad markaan aan marayni column-ka koobaad waa kan lambarka ugu weynaa muxuu ahaa wuxuu ahaa 10 17 buu ahaa 17 xagee ku dhex jiraa wuxuu ku jiraa 25 min ilaa 20 min ilaa 25 20 min ilaa 25 ayuu ku dhex jiraa isagoo ah hal baa ku dhex jira right column-ka xiga lambarka ugu badan waa kee
وحقا صدح لاتن بايسنا حقا صدن إيو لابان يسنا حقا صدن إيو كوبان يسنا حقا كوي لاتن بايسنا وصدن إيو لابو صدن إيو لابو كي امتي لبردي وكجيران ولباتن من شن إلى لباتن إيو شن لباتن إلا شن إلا إيو صدن لباتن إلا شن إلى لباتن أو حالا إيو لباتن إيو شن إلا إيو صدن يسنا حالا حال إيو حال بان يسنا then column-ka saddexaad baan tegaynaa column-ka saddexaad lambarka ugu weyn waa imisa waa 33 33 oo ah 25 ilaa iyo 15 ilaa iyo 20 15 ilaa iyo 20 oo hala iyo 20 ilaa iyo 25 20 ilaa 25 oo hala iyo 20 ilaa 25 oo hala right column-ka saddexaad ka afraad markaan aan aadno waa saddexdaas bayaan yaa meesha fiirinayna saddex baa meeshaan ka haysanaa saddexdaas oo ah 15 ilaa iyo 20 15 ilaa iyo 20 20 ilaa iyo 25 20 ilaa 25 iyo 25 ilaa iyo 30 25 ilaa iyo 30 saddexdaas jira ka dhigan tahay then column-ka shanaad markaan aadno ka ugu badan waa kee waa 43 waa kaas oo ah 3 5 ilaa iyo wuxuu ka bilaabiyaa kan ku bilaabiyaa 5 ilaa iyo 10 oo hala 10 ilaa iyo 5 oo hala 5 iyo 10 ilaa iyo 20 oo hala halkaas ku dhamaaday kan then ka ugu dambeeya markaan tagnay wuxuu ka bilaabmayaa 5 iyo 10 maamin wuxuu ka 10 buu ka bilaabmayaa 10 ilaa iyo 5 iyo 10 oo hala 5 iyo 10 ilaa 20 oo hala 5 iyo 20 ilaa iyo 20 ilaa 5 iyo 20 oo hala then maxaan sameynaynaa waan isugu dardaraynaa markaan hoos isugu darno xaggan hal baan ka leenahay xagga hal yaal markaan isku daro waa 2 xaggan 1 2 3 4 baan ka haysanaa 1 2 3 4 5 xagga 5 baan ka haysanaa 1 2 xagga 2 baan ka haysanaa right then ka ugu badan waa kii ka ugu badani waa kan ma ka dhigan tahay 4 ka ugu badan waa ka waa 5 maadaama 5taas ugu badan tahay class model classkeenu wuxuu noqonayaa 20 ilaa 25 buu noqonayaa the maximum occur corresponding to 20 to 25 and hence it is the model class keeni buu noqonayaa then qaacidadii baan isticmaalaynaa qaacidadii markaan isticmaalo kan maadaama noqday xagan imka yaan isticmaalinaa ka dhigan tahay BL keenu muxuu noqonayaa waa 20 soo ma maxay noqotay 20 ilaa 25 20 ilaa 25 kaas ayuu noqday maxaan ku idhahdaa model classkeenu then taasi waa 0 tanna waa f2 kan waa f1 f2 waa stressed f1 f0 waa 16 f1 waa 17 f2 na waa 15 bay ka dhigan tahay then qaacidada markaan xaggan aan gelgelino waxay noqonaysaa waa 20 oo taasa lagu daray 17 laga naaqusay f0 oo 16 f0 oo 16 2 f1 bay ahayd oo 17 minus f0 iyo f2 oo 16 iyo 15 oo lagu dhuftay 5 kaas waa maxay waa labadii la kala jaray 20 minus 25 5 markaas maxay noqonaysaa modelkeenu muxuu noqonayaa 21.5 21.5 siduu ku yimiday inaan fiirino wuxuu ku yimiday 17 marka laga jaro 16 waa hal hoosta maxaan ka haysanaa 2 lagu dhuftay 17 2 lagu dhuftay 17 waa 34 maxaan ka haysanaa right 4 iyo 30 laga naaqusay imisa 16 lagu daray 15 33 baan hoosta ka haysanaa waxaan hoosta ka haysanaa 33 then hal loo qaybiyey
answerka oo lagu dhuftay 0.1115 ma ogtahay lagu daray 20 plus 20 marka waxaan haysanaa 20.15 okay not 21 why it's 20.15 imanaysa meeshaas saas imanaysa ka dhigan tahay okay qaybta ugu dambaysa qaybtan oo ah graphical location of mode teeba mode loo raadiyo anagoo isticmaalina graph anagoo isticmaalina soo loo raadiya the following are steps to locate a mode by graph then marka koobaad draw the histogram of a given distribution maxaan histogram baya graphkeena nooca histogramka ayaan sameynaa kabacdi join the rectangle corner of the highest rectangle mode class rectangle baan sameynaa kabacdi from the point of intersection of the two diagonal line draw the perpendicular line to the x-axis which meet at M and the value of x corresponding to M is the mode. For example exercise-kana la siiyey data-gana la siiyey frequency-gooduna waa kan marka maxaan sameynaa graphical mode baan ayaan raadiyeynaa imika haddii aan sidii aan u isticmaali lahayn maxaan ku dhahda qaacido bay noqon lahayd inaan isticmaalo qaacidadaas oo ah tan f one bay noo noqon lahayd kana f0 bay noqon lahayd taasina maxay noqon lahayd f1 bay noo noqon lahayd right okay then sanaan sameynaa datagiina la siiyey min 0 ilaa 10 10 ilaa 20 20 ilaa 30 30 ilaa 40 40 ilaa 50 40 ilaa 50 ilaa 50 ilaa 60 sanaan sameynaa kan waa datagiini then korkiina saasaan la siiyey min 0 ilaa 6 imsa yihiin waa 5 goor buu xagga la soo sheegay 10 ilaa 6 intee keenay 8 baa keenay 20 ilaa 30 intee keenay waxa keenay 13 aan ka bahayeen 40 ilaa 30 ilaa 40 imsa keenay waxa keenay 7 keenay 5 ilaa inta imsa keenay 5 baa keentay xaggana waxaan 4 imsa 3 baa hayn right then ka ugu badan waa xagee waa qaybtan qaybtan sameynaysaa qaybta markaas samaysid maxaa sameynaysaa labadaas cross baa sameynaysaa dhaxbartankii markaas aad sidaa diagonal markaad aad hoos samaysid meeshaas maxay noqonaysaa ay ka dhigan tahay our mode keeni ay noqonaysaa ka dhigan tahay then but advantage iyo disadvantage aan fiirino advantage-kiisa modelku waxa weeyaan it is completely aad buu fudud yahay it can be find graphical baa lagu soo raadin karaa it easy to locate on the same case by inspection adoo indhaha kale aad lagu soo saari karaa ka dhigan tahay it's not affected by extreme value si walbo loogu daro lambarada labada dhinac ay kaga darnamaan waxba ma affect gareeyo it is simple descriptive measure of average it was simple bay ka dhigan tahay then disadvantage waxa weeyaan it's not suitable for further mathematical treatment lama sii qeexi karo ama lagama sii duuli karo ama xisaabo kale lagama sii samayn karo it is unstable measure as it's affected more by sampling fluctuation hadduu jiro meesha khalad baa ka iman karaa the mode for a series with an equal class intervalkiisu hadduu inequal yahay lama calculate lama soo saari karo way ka dhigan tahay in a bimodal distribution there are two mode class and it is difficult to determine the value of the mode marmarka qaad markuu laba mode ama wax ka badan markay noo yimaadiin moodkeena saxda ee halka lama soo saari karo way ka dhigan tahay I hope inaad fahanteen baan aan rajeynayaa maanta casharkan uu ahaa qaybta aan ka hadlaynay mode xaggan uu noogu eegyahay wax haddii aad leedahay any question or if do you have any question feel free to contact us through our comment section Facebook YouTube Instagram iyo LinkedIn waad nagala soo xiriiri kartaan qaybtan aan ka hadlaynay waxa weeyaan qaybtii ugu dambeysay oo ah measure of central tendency iyo qaybta statics ama classical statics oo ah waxaan soo diyaarinayay waa Hanuun Virtual Academy waxaan soo diyaarinayay
waa anigoo ah injineer abaadir daahir. fadlan cashirkan cashir kaloo lamida intaan ku kulmayno waxaanu anin kaga tegayaa salaanta qaaliga islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.